Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada janalka maalmaha. Waxaan idiin soo gudbinaynaa qiso aad u cajiib ah. Qisadan ayaa waxay dhex martay Cali ibn Abi Talib iyo haweeney maskiin ah. Maalin maalmaha ka mid ah, Cali ibn Abi Talib oo socda wadada ayaa wuxuu arkay haweeney madaxeeda ku sida biyo isla markaana qaadi la ah. Aad ayuu ugu baarjilacay. Markaasuu u yimid oo wuxuu ku yiri ma ku saacidaa. Kaasi ku tiri ha. Biyihii ay ka qaaday. Markaasuu dhabarkiisa ku qaaday. Markii ay tageen gurigeeda oo biyihii u dhigay wuxuu arkay carruur yar oo meesha fadhiyaan oo hooyadii sugayo. Kaasuu wuxuu ku yiri waxaan filayaa inuusan ruux raga gurigeena joogin oo idin saacidayo. Maxaa yeelay haddii uu joogi lahaa nin raga isaga ayaa ka kaafi lahaa hawshan. Markaasay waxay ku tiri naagtii ninkaygu wuxuu ka mid ahaa ciidamada muslimiinta. Amiir mu'miniin Cali ibn Abi Talib ayaa wuxuu u diray xuduudda, halkaas ayaana lagu dilay ninkayga. Hadalkii markuu u maqlay Cali aad ayuu uga murugooday. Markaasuu ka soo tagay isagoo murugaysan. Maalinkii xigtay wuxuu u soo qaaday raashin iyo hilib iyo timir. Markaasuu gurigiisu aaday. Albaabkii ayuu soo garaacay. Markaasi wuxuu ku tiri waa kuma. Wuxuu yiri waa ninkii shalay biyaha kuu soo qaaday. Waxaan u imid inaan carruurta saacido. Albaabka ay ka furtay. Markii aragtay inuu ninkan raashin u wado ay wuxuu ku tiri Allah ka raali noqdo. Annaga iyo Cali dhexdeedna Allah subxaanahu wa ta'aala ha xukumiyo. Naagtani ma aysan ogeyn in ninkan Cali ibn Abi Talib uu yahay. Albaabkii ay ka furtay. Markaasuu soo galay gudaha isagoo raashinkii xabaarsan. Naagtii ayuu ku yiri waxaan doonayaa inaan ajir kasbado. Ay ogolow inaan cajiinkani u duubo carruurtaada. Naagtii cajiinkii ayay qaadatay. Kaasi waxay gashay diyaarinayso. Cali wuxuu bilaabay inuu hilibkii karinayo isla markaana carruurtii siinayo timirtii u waday. Kaasuu wuxuu ku dhahay markuu siinayay iska cafiye Cali. Maxaa yeelay wuxuu ahaa nin xaqiini aan ka soo bixin. Markii naagtii cajiinka soo diyaarisay ayay u wacday Cali ay ku tiri cajiinkii waa diyaar. Kaasoo Cali wuxuu bilaabay inuu tinaarka shidayo. Markii uu tinaarka shiday ayuu wuxuu geliyay gacantiisa isagoo doonayo naftiisa canaanto. Markaasuu wuxuu yiri isagoo naftiisa la hadlayo ku guba naartan. Maxaa yeelay waxaad ku gabood fashay xaqii naagaha garoobka ah iyo carruurta agoonta ah. Isagoo naftiisa la hadlayo isla markaana tinaarka kor fadhiyo muufada dubayo ayaa waxa u soo gashay naag diriska ah. Markaasay aragtay inuu yahay ninkani Cali ibn Abi Talib. Way baxday. Naagtii ay u tagtay waxay ku tiri ma taqaanaa ninkani oo gurigaaga jooga maanta ee muufada ku dubayo. Kaasuu wuxuu ku tiri maya. Waxay tiri ninkani waa amiir mu'miniin Cali ibn Abi Talib. Naagtii aad ay u yaabtay. Markaasay u timid Cali ay ku tiri iga raali noqo kugu xadgudbay. Ma ogeyn inaad tahay Cali ibn Abi Talib. Cali ayaa u jooga ku yiri inaan adiga ii cudurdaarto ma ahan balse aniga ayay ahayd inaan cudur daarto. Maxaa yeelay aniga ayaa xaq ruuxa ku gabad falay xaqiina isla markaana aan xasuusanin. Sida ayuu ku soo tagay Cali. Qisadan halkan ayagana waa eg tahay. Qisadani waxaan ka faa'iideynaa mas'uuliyadda culayska ay leedahay. Ay mar waliba inay wanaagsan tahay in ruuxa mas'uulka ah oo ka warqabo dadka raaciyadiisa ah. Maxaa yeelay waxaa dhici karta qofka inuu mas'uul yahay isla markaana uu ka warqabin dadku mas'uuliyad u haayo. Waxaan dhici doonto qofkani inuu maalinta qiyaamaha ku mutaysto ciqaab iyo cadaabka Allah subxaanahu wa ta'aala. waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. Haddii aad ku cusub tahay janalka maalmaha fadlan subscribe dheh. Gambarka riixsiga ku soo gaaraan waxyaabo cusub aan soo dhigi doono. Mahadsanid.